halkan waxaan idinka soo gudbinaynaa taariikhda aan idinka soo daraasaynay degmada taariikhiga ee faca weyn ee Xaaji Saalax. bilowga degmadu waa sanadkii 1946 sidaanu ka soo xiganay odayaasha iyo duqeyda degmada Xaaji Saalax. hanaanka horumarineed ee degmadu ku tallaabsatay isla markaasina ka taabagalay ayaad halkan ka dhugan doontaan inta uu socdo barnaamijka taariikhiga degmada Xaaji Saalax. maamulka gacanta ku haya degmada faca weyn ee Xaaji Saalax ayaa dhankooda gaarsiiyay horumar ballaaran oo leh dhan bulsho iyo mid deegaanba. si waxa intaasi dheer xusid mudan hagar la'aan inay qurba joogta degmada u dhalatay dharaar walba u heelan yihiin iyagoo kobciyay isla markaasina kor u qaaday dhaqaale ahaan iyo sidoo kale mid aqooneed ee bulshada degmada Xaaji Saalax. barnaamijkan ayaa waxaad kaga dhergi doontaan guud ahaan taariikhda faca weyn ee degmada Xaaji Saalax. magacaygu waxa weeyaan Axmed Cilmi Xayd dadaydu waxa weeyaan 81 waxaan halkan ka sheegayaa waxaan ka qaban karo degmada Xaaji Saalax waxyaalaha ay soo martay iyo bilowgeedu wuxuu ahaa waxana xaadir baan u ahayn waxana maqal baan ku maqalay taariikhda magaalada bilowgeedii waxana yar baan markaa waxaan ku hayaa sheekada ama ay ahayd waxa ugu horeeyay xurfad nin la yiraahdo Xayd Toolan inay wala lahaayeen oo marka hore qoday marka dambana oo Xayd Toolan sameeyay barkadaas waxa ku xigay sida aan ku warhayo laba barkadood oo nimanka la yiraahdo ilma Xasan Xaaji Waraabe halkaasay ka bilaabantay taariikhda anigu ma qoro oo taariikhda maalinta waxay ahayd ma garanayo laakiin waxay noqotay tuule maqaada yar bay noqotay ilaahay wuxuu keenay
raxmatullahi caleyh naxariisna Allah siiyo isagiyo wixii islaamaba xaaji axmed yuusuf ismaaciil oo ka dhigay magaalada ku bilaabay berkadda jiingadley la baxday kana bilaabay sida ay magaalo u noqon lahayd taas oo aanan lahayn waddan looga baxda magaalada Barco waxaanu ka wareegi jirnay duruqsi wadada duruqsi baan ka wareegi jirnay markaanu Barco doonayno laakiin Hargeysa waynoo balaanid xuduudkan raaci jir ninkaasi naxariisna Allah siiye wuu ballaariyay magaalada ilaah baa u diray isaguna tacabkiisa iyo maaliyadiisa wuu geliyay wuxuu ka dhigay magaalo isagoo ku bilaabay inay wadada isku xidha Burco iyo Xaj Saalax uu sameeyey boodle xagga bari ka marta eegna halkaa kaga dhacda ama dudumaale marka runtii la sheegayo magaaladu waxay ahayd Xaaji Axmed magaaladu waxay ahayd Xaaji Axmed intii ka dambeysay dadkeedii baa u kacay magac gaara ma laha magaalay noqotay iyadoo magaalo ah dawladdii faqashtii way gubtay way baabiisay ilaa 50 sannadood magaaladu dhismaysay waxa laga dhigay bannaan anigu waxaan u soo joogay ninkii markaa watay ciidanka inuu askartiisii amar ku siiyey yaan arkin wax ka muuqda meesha cariish sandaqad aqal Soomaali maqaad daar waxba yaan indhahayga iyo qaban buu yiri shaahid baan u soo ilaahayna been iiga hori maayo waanu taagnaa anigu intaan magaalada joogo aan dhexdeeda taagnaa saddex goor maaha inta kolba laygu weerariyey magaaladu mactabadaha badan bay soo martay halgan bay soo martay dagaal baan ula galay jabhadda waxaan leedahay dawladdii Siyaad Barre wadada laga duuli jiray ama la soo mari jiray ama la sii mari jiray waxay ahayd tii Xaaji Axmed sameeyey Xaaji Saalax iyo Burco u dhaxaysay xasan haybe cabdi ahna odayaasha degmada Xaaji Saalax taariikhdan Xaaji Saalax waxay leedahay waa taariikh aad u daaweyn inaan soo gaaray iyo in iga horeysay way leedahay odayaashii iga horeysay baana taariikhdeeda aad uga soo warramay waxay ahayd halkani marka anigu inta aan garanay aan ka warrami karo waa intii dawladdii kacaanku ay joogtay iyo intii laga xoreeyay wadanka ay ka tagtayba dawladda kacaanka meelihii ay bartilmaameedsatay bay halkani mujaahidiinta ugu badanina ay ka soo jeeday degmadan Xaaji Saalax Maxamed Cali baa kamid ahaa Jaamac Ali Cilma kamid ahaa Cabdullaahi Qasaal baa kamid mooy fara badnaayeen mujaahidiintii lagu bartilmaameedsanay degmada Xaaji Saalax alxamdulilaahi rabbil caalamiin markii ay ka baxday ee ilaahay wixii ka saaray ee la burburiyay ee madaafiic iyo miino lagu xidhay barkadaha iyo dhulkaba lagu xidhay miino wadib baa looga kabtay waa xad bay ku taaladay magaaladu waa xadka Itoobiya iyo Soomaaliya kala qaybiyo weeyaan Soomaaliland iyo Itoobiya kala qaybiyo weeyaan waxaan lagu soo martay oo distay in ciidanka Itoobiyana uu koonaha yaalo ciidanka Soomaalilandna uu xaggan yaalo maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadlay subxaanahu wa tacaala waxaan ku mahadnaqayaa nimcada sanadkan maanta dhacday ee ilaahay shubay ee lagu baahi beelay ee abaarihii wadanka ka jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nagaga meeray ilaahay baan ugu mahadnaqayaa nimcada iyo nabadgelyada iyo caafimaadkan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala marxaladii maanta joogta waa mid aad iyo aad u qiimo badan wax kastay soo martayba waa mid aad u qiimo badan nimcada maanta ku jirta waayo waxaad garanaysaa nimcadu inay maanta dhacday ugu yaraan 11,000 oo neef waa lagu iibiyey oo geel iyo ariba leh 11,000 oo neef waa lagu iibiyey oo geel iyo ariba waa lagu iibiyey waxaasi waa xoolihii ilaahay dadka siiyay ama ha yaraan ama ha badnaadeen ayaa taqwad yeeshay oo naaxay oo neef waliba u iib galay ilaahay biicna waa u furay subxaanahu wa tacaala alxamdulilaahi rabbil caalamiin taariikhda Xaaji Saalax marka hore mid la koobi karayo ma aha xadka waa degmooyinka ugu da'da weyn bay ka mid tahay intii ay degmada qaadatayna aad bay u kobcday
maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin xadkaasay ku taalaa daanta xaggaana ciidanka tidaaqa Itoobiya jooga xaggana ciidanka Soomaaliland baa jooga nabadgelyo ahaanna waa meesha ugu fiican daaq ahaan iyo deegaanaana waa wanaagsan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin degmo weeye hadafkoodu horumar gaadho dalkay ugu horeysa Xaaji Saalax waa hodan marka hore magaaladan Xaaji Saalax intii xaajigu ka soo warramay ee ay magaalowday magaaladan ilaa 81 meelaha waqti ay tahay oo booliis uu joogo dawladda Soomaaliya ayaa wuxuu ku dhufteen jabhadii SNM baa habeen soo gashay waxay ku dhufatay 7 bay ku dhufatay midhar booliis soo joogayna way kala yaaceen markaas saldhigii bay xabad 7 ku dhufteen arintaasi sidaa markii ay u dhacday qalaalaasaha iyo nabadgelyo darrida iyo kacdoonkii SNM meelahaas waqtigaas uu soo bilaabmay intii ka dambeysay waxa la iska eegayay waxa weeyaan ammaan darri baa la eegayay habeenkaasi sidaa markii ay u dhacday dadkii shacabka ahaa intay dawladdu timi baa la soo ururiyay 10 oday oo odayaasha Xaaji Saalax ka mid ah ayaa waxa loo dhibay caaglayaal waxa la yidhi iska ilaaliya shuftada xagga idinka soo galaysa hawdka sidii baa hawshaasi ay u socotay kadib xaaladii nabadgelyo darri iyo ammaan darri sidii bay ku soo korodhay magaaladii waxa la gubay SNMna way soo korodhay oo soo quwadeysatay waxa la gubay 85 84 meelahaas ayaa degmadan Xaaji Saalax la gubay markii la gubay guriyana waa la qarxiyay baraagana waa la qarxiyay dadkii qaxoonti buu galay waxa loo qaxay hawdka loo qaxay meesha la yiraahdo maayare iyo daalaco ayaa dadkaasi deegaan u noqday oo loo guuray inta kadib anigu shakhsiyadayda markan ka warramo kulay nin yar baan ahaa markii hawdka loo guuray ee muddo aanu joognay waxaan ka mid noqday ciidamadii SNM ayaan ka mid noqday waxaan raacay mujaahidkii Maxamed Cali ciidamadiisii baan ahaa halka qalalaasa ka galay dalkii baa lagu qabtay magaaladii Xaaji Saalax markii dalka la qabtay ee dawladdiisii aad barray ay ka guurtay xuduudka Gorayo xun Duruqsi Teeyalaaye dhulkaas oo dhan way taalay ayaa dadkii magaalada ku soo noqday waa la degay si fiican baa dadkii yaallay ugu soo noqday halkaas aasaaskii dambe ee degmada Xaaji Saalax ay ka bilaabantay si fiican bay magaaladaasi u kubacday si fiican bay u dhismantay hadday xagga waxbarashada tahay hadday xagga caafimaadka tahay haddii xagga horumarka dhaqaalaha ay tahay halkaas ayay ka kobocday meel fiican bay maraysaa imika oo ay joogto waqtigan aad iyo aad baa dhaqaalaheedu u fiican yahay runtii dhaqaalaha ugu badan ee degmadan ay ka shaqaysaa beerama leh waxa weeyaan waa xoolaha xoolahaasun baa dadkana waa xoolo dhaqasho alxamdulillah meel fiican marka la eego deegaamada kale ee maaragtay Soomaaliland deegaanada ugu fiican ee kobcay ee hore u maray ayay ka mid tahay waxa horumariyay qurba jooga iyo qolqol joogaba way horumariyeen meel fiican baanay maraysaa degmo weeye hadafkoodu horumar gaadho dalkay ugu horeysa Xaaji Saalax waa hodan anigoo magacaygu yahay Cabdulaahi Xaaji Ibrahim Jaamac waxa weeye halkan waxa laga bilaabay waxbarashada degmada Xaaji Saalax 1991 waxaana lagu bilaabay daasado muxuu ahaa halkan muddo badan markii lagu waday waxa loo wareegay dugsi cusub baa la dhisay dugsigiina waxaanu ku wareejinay
saldhigga degmada maadaama aanay wax dhismayaal berigaa jirin waxaanu dugsigaa ku wareegnay 2000 iyo oo buura ah dugsigaas waxa weeye ardayda berigii hore waxaanu u kaxayn jiray duruqsi 7 lod baan geeyay anigayga idin la hadlaya imaka 7daas imaka agaasimaha ciyaal badan baa kamid ah oo kamid yahay agaasimaha waxbarashada ee waxa la gudoomiyaha caafimaadka raage uu kamid yahay waxa kale kamid ah walaalkii oo asaguna dugsiga Cali Ciise maamulo ka ah waxa kamid ah ummad kale fara badan intii ka dambeysay 7 lood wuxuu baa lagu qabanayay magaalada muxuu ahaa oo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxa ka baxday arday fara badan oo qiyaastii markan tirakoobkeeda dusha ka hayo gaaraysa 1000 arday waxaana ka baxay dhowr iyo 10 lood imakana kuwii ugu badnaaba ku jira waxa ku galay ardayda dugsiga sare waxa weeye 27 arday weeye sidaas sawirkaba ku aragtaan ardayda dugsiga hoose dhexena ayaduna waxa weeye 26 waxa kale oo nagu soo biiray magaalooyinka kale degmada xukunta ay kamid tahay Cali Faarax 10 arday baa ka yimi magaalada Mulaxana waxa ka yimi 10 arday waxbarashada waxa loo soo maray dadaal fara badan waxa kale oo ka qayb qaadato halka gaarsiiso aan iyagana u mahadnaqaynaa dhiyaas barada qolqol joog iyo qurbo joogba oo bil walba ku bixiya $295 waxa kale oo ka qayb qaatay odayaasha deegaanka waxa kale oo ka qayb qaatay Shukri Xaaji Bantare waxa kale oo ka qayb qaatay dhalinyarada wada jir halkaas waxa weeye 4 lood ayaa tagay oo muddo gobolada ugu sareeyay ayaa tagay meesha laga maqalle kuwii ka dambeeyay imaka loodadkii ka baxayna qaar badan baa meeran keenay kuwan imaka ku jirana waxaan ka rajaynaynaa inay muxuu ahaa iyaguna qaar badan keenaan sida sawirkaba ku aragtaan waxa weeye iskuulka quruxda badan dadaal iyo maskax iyo juhdi buu ku yimi ilaahayna la kaashaday bini'aadamkuna ay taageereen insha Allah ta'ala marka dadkii naga taageeran iyo dawladaba waxa iyo dadka kale deegaankaba waa uga mahad celinaynaa hawsha ay qabteen anigoo ku hadlayo magaca waxbarashada dadaal fara badan baanu gelinay juhdi oo iskama wanaagsanaaday wixii nolol keenay maanaan dayicin imakana insha Allah dayici mayno qoliyaha kale ee ama shicib ha noqdeen ama dawlad ama qorqorjoog ama qolbajooga ayagana waxaanu leenahay ilaahay ayaa muxuu dunida haydiin daayay wixii awalba ka qaban jirteen ka qabta annaguna dadaalka iyaga waa sii wadaynaa insha Allah ta'ala waxa kale oo warbixinta ku jira kuwii aanu uga bilownay uulada ayaa macallimiin maanta ka ah oo ay kamid yihiin 3 hablood oo dugsiga hoose wax ka dhiga ayaa kamid ah marka waxa weeyaan degmaduna horumarkeedu aad iyo aad bay u socotaa sidaan waan iskaga tagaa tirada ardayda ee imaka secondary-ga dhigataa waxa weeye 86 arday dugsiga hoose dhexe waa 240 weeye arday ayaa ku jira dhismayaashu waa 9 galaas weeye ayaa dhisan 9ka galaasba waxa weeye laba mooyaan waa qalabaysan yihiin waxa weeye office-kii WFBD oo ka shaqeynaysa oo kula iyaduna feedingkii ardayda runtii marka waxa weeye waxa kale halkan uga mahad celinaya gudoomiyaha Cali oo asaguna aad u firfircoon oo degmada aad uga shaqeeya odaygan dul Xaaji Haliil oo asaguna gudoomiyaha gudida odayaasha kale Xasan Haybiye Maxamed Muuse ayaguna aad iyo aad ugu dadaalo waxbarashada xitaa magaalooyinka waaweyn baa looga soo bedeshaa markii la arkay waxbarashadu tayada ay leedahay waxbarashadaas oo gelin hore iyo gelin dambe laga shaqeeyo waxaana macallimiinta aanu ka doonanaa boorama oo Hargeysaba ka shisheeya oo meeshii hooyadii waxbarashada ah marka waxa weeye waxbarashadu halkaas ay ku socotaa halkaana waanu ka sii wadaynaa insha Allah ta'ala qoladiina saxaafadan aad iyo aad baan idinka mahad degmo weeye hadafku horumar gaadho dalkay ugu horeysa Xaaji Saalax waa hodan halkan aynu joognaa waa xanaanada Xaaji Saalax waxay furan tahay oo xariga laga jaray ama ay caadi u shaqeysay laga soo bilaabo 1999 ilaa imika waxay isugu jirtaa dhowr section marka hore shaqaalaheedu jooga waa 14 qof 7 beeroole iyo 7 kalo voluntary qaybaha isku jirto waa qaybta dumarka delivery-ga antenatal iyo postnatal qaybihii talaalka iyana way jiraan way furan yihiin waa shaqeynayaan labadii OPD waxaa gacanta ku haysa hay'adda HBA qaybta nutritionka ama nafaqada
waa laba qaybood ah laba ayadoo kala gacanta ku haya oo WFP mid tahay midna ay tahay ayada dhankan oo qaybta TB ay joogto shaqaalaha dadka aad bay ugu xidhan yihiin aad bay ugu yimaadaan waxayna shaqaysaa 7 barka laga bilaabo ilaa 2 galabnimo intaa shaqaale waxiin wada joogaan degmo weeye hadaf loo horumar gaadho dalkaygu horeysa xaji saalax waa hodan degmada xaji saalax taariikhdeeda horta waxaa la aasaasay 1946 aasaaskoodu horreeyay barkadii horreeyay waxa kamid ahaa barkadii horreeyay laqoda xaytoole tii labaadna waxaan ku leeyahay ilma xaji axmed qulimbe tii saddexaadna ilma xasan xaaji waraabe marka taariikhdu saasay ahayd gudoomiyuhu Heydman ku horreeyay degmada xaji saalaxna wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Qulimbe waxaana ku xigay Ilaahay u naxariistay isagana Cabdullaahi Yuusuf Qulimbe waxa ku xigay Ismaan Yuusuf Qulimbe Ismaan Yuusuf Qulimbe markuu geeriyooday waxa ku xigay Salmaan Ismaan Yuusuf Qulimbe mar labaadna waxa qabsaday Ibrahim Ali Yuusuf ayaa qabsaday Ibrahim Ali Yuusuf Qulimbe markaas 2008 laga dhigay degmada xaji saalax degmo markii degmooyinka kale la magacaabay oo xilliga xukuumaddiisa Daahir Riyaale marka wax loo magacaabay Cabdi Tuurane oo isaguna geeriyooday Ilaahay u naxariisto gudoomiyaha soo noqday markaas oo dan dib waxa uga soo noqday Ibrahim Ali Yuusuf Qulimbe ayaa dib uga soo noqday Ibrahim Ali Yuusufna Ilaahay u naxariistay uu geeriyooday mar labaadna gudoomiyihii saddexaad wuxuu noqday Khadar Cabdi Oday ayuu noqday anigoo Cali Muuse Faaraxna waxaan noqday gudoomiyihii afraad ee degmada xaji saalax insha Allah filimka documentary-ga degmada laga sameeyay waa filim ka warramay taariikhdeedii halgankii waxa ay ku lahayd oo degmada xaji saalax sidii odayaashuba sheegeen 3 jeer la gubay barkadaheeda la qarxiyay oo meel lagu wada xiray asaaskeeduna dhibaatay loo geysanay ahayd mujaahidiintii ugu waaweynay degmada xaji saalax oo ka soo jeeday xaji saalax hadii noqoto ama Jaamac Alimi ama Maxamed Cali oo la oran jiray Taatar Maxamed Cali baa ka talaaba halkan oo dhowr jeer isaga loogu galay dhibaatooyin lagu geystay marka waxyaabaha gubitaanka far badan ku mutaysatay degmada xaji saalax taas ka mid ahayd waxa dhacday oo maalintii baraga la qarxinayay oo rag badan ku dhintay oo nin Muuse Ismaaciil oo la oran jiray indhacase oo intaas soo gaari isugu timi uu ku geeriyooday maalin wax dhagweyna xitaa ku dhaawacmay mujaahid dhagweyne ayaa isaga laftiisa ku dhacmay degmada xaji saalax ninkii ku geeriyooday kale wuxuu ahaa nin casuha nin nuur cali waraab la oran jiray odayga cali waraab gabi jiray badhaaro Sacuudigu ka yimi ragii wuxuu ahaa halganka ka soo qayb qaatay xaji saalax buu ku dhintay marka degmada xaji saalax waxay degmo ku suntan dagaaladii SNMT oo qayb li wax ka qaadatay degmo weeye hadaf loo horumar gaadho dalkaygu horeysa xaji saalax waa hodan hore Ilaahay wuu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala saaka waxaan joognaa degmada xaji saalax waan ka warrami doonaa taariikhdeeda iyo waayaha ay soo martay iyo intii aan joognay wixii noo qabsoomay degmada xaji saalax waxaan imi bishii 10aad 2018 intii la soo magacaabay waxyaabaha ugu waaweyn ee ka qabsamay degmada xaji saalax waxa kamid ah dam laga fuliyay wasaaradda biyaha madaxweynaha qaranka ku deeqay oo aad iyo aad u weyn oo lagu bixiyay qiimo lacag lagu bixiyay tahay 447 waxaana fulisay shirkadda Alnaafura damkaas insha Allah waa gabagabo bismillaahi kariim ilaahay bayna fili doonaa insha Allah inuu biismo kulli xaraka shirkiisuna dhawaan ba hadii Ilaahay ka dhigo noqon doona iyadan waxa noo fuliyo kale wada 42 kilomitir oo sirfigaraysan oo ka bilaabantay degmada xaji saalax ilaa Buurley oo 42 kilomitir iyadana insha Allah waxa ku arki doontaan sawirada waxaan kale la fuliyay wadada kamid ah 2 kilomitir waxa la dhigay Carakaawadi oo laga soo bilaabo marka hore Argada ilaa iyo magaalada insha Allah 1 kilomitir way kala baxsan tahay 1 kilomitir kalena insha Allah weekend bala kala bixin doona hadii Ilaahay ka dhigo bilicda kale waxa noo qabsay Argada oo magaalada ka fulinay Argada iyadana qurba jooga qayb li wax ka qaatay lacag la $2,000 ku baxday nin Leela Cabdiraxmaan Macallin Cali ayaa hawsha ka qayb qaatay oo fulinteeda laha aad baan ugu mahadnaqaynaa isagana waxa noo qabsamay kale zero aan magaalada ka sameynay
oo isaguna fiican oo insha Allah ku yaal magaalada dhexdeeda waxa ka qabsamay kale saribadii oo qurbi joogaygu fuliyeen oo insha Allah wixii isaga waxay la waayay doona cidii gacanta ku qabatay xogayaha oo iyaduna saribadii gabagaba iyaduna ku dhow waxna ka dhiman yihiin insha Allah iyaduna waxay dhawaan bay laga yaabaa in soo gabagabado bilicdo kale waxaan ku beeray oo wali saakada socdo laga bilaabo dhirbeeris aad iyo aad u balaaran oo raacina wadada ilaa iyo 100 geedo dhirbeeris oo wadooyinka ah oo haddana saakada socda taasuna way noo qabsantay alxamdulillah waxa noo qabsamay dhaam kale oo laba hay'ad gacan naga siiyeen markii dambe cagafteeda aan ku qodnay insha Allah oo isaguna magaalada dhinaca kale ku yaala bariga kaasuna noo qabsamay insha Allah alxamdulillah marka Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxyaabo qabsamay kale waxa kamid ah markii noqotay xagga biyaha hay'adda way shirkisay saddex barkood bay ka fulisay oo iyaguna dayactiraha macaajingadii la saaray imika biyeysan hay'adda bisha casiyada barkad bay ka fulisay oo iyaduna dhameystiran imika cagafta degmada kale anaga iibsanay kabkaygaanu ka iibsanay saddex biloodkii waxaan lahayn degmada xasaalaha degmooyinka dhiidaan kala simannahay inaan 42 milyan leenahay markaan saddex bilood oo qoro qaadanay inaan cagafta noo ka iibsanay 19600 banka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan ka amahnay oo ay ahayd amaamirtii madaxweynaha qaranku fuliyay in degmooyinka lacag la maahayo dibadna kabkooda laga goosto $19,000 anaga ka jaray kabkayga mushaarka haddaan xogayaan haydan gudxinka haddaan mayrkanahay 12500 waxa qurba joogayaan ka qaadnay lacagtana si loo bixiyay insha Allah waxaan ku cadeyn doonaa qoraalka ayaan ku cadeyn doonaa cidii ka qayb qaadatay cagafta lacagteeda $12500 aad iyo aad baan qurba joogayga ugu mahadnaqaynaa iskuulka secondary-ga kale qurba joogga gacanta ku haya sanadkii $24,000 bay ku bixiyaan macallimiintiisana waxa laga qaataa jaamacadda Hargeysa oo imtixaan baa loo galay cidii ku guuleysata timaada qurba joogga waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa degmada Xaashaalax dadkoodana wax gashadeen ayay gashadeen waa in loo mahadnaqo way mudan yihiin haddii noqoto maxad ba ka jiray magaalada dugsi sare ah oo jaamacad loo gudbiyay islaamiga oo 4 galaas ka kooban oo hurdadii leh oo dhameystiran lacagtiisa markii hore aasaaska hawsha gacan qabadka ee bilowgiisa waxa bilaabay khadar waxa bilaabay waxaan leeyahay Dr. Shiine ilaahay khayr siiyo iyadoo hawsha gacantan kuna lacagtii la ururinaya ayuu ganacsadaha weyn khadar ambassador yidhi ana wala baxay tabarruc waxa fuliyay khadar ambassador ayaa fuliyay maxadka barkada oo kale ilma al xasan baa aboohda la baxay barkad weyn oo $12,000 ku baxday oo ku dhex taalay masaajidka maxadka ilma al xasan baa bixiyay dhulka waxa bixisay milge xaaji guuleed ayaa bixisay oo waqaf loogu bixiyay waarteedu bixisay iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa la miisaanka xasanaadka Allah ku saaro marka maxadkuna ka soo gabagaba ku yahay dugsiga soo kale 400 qof baa dhigta caruura soo aan bisaguna socda ma sha Allah alxamdulillah degmo weeye hadaf loo horumar gaadho dalkaygu horeysa xaji salax hodan documentary waxyaabihii degmada u qabsoomay anigu waxaan degmada joogay muddo ku siman 2 sanadood oo u dambeeyay waxa la soo magacaabay 2021 bishii 6 intii aan degmada joogay waxyaabo badan baan noo qabsoomay oo ay ka mid yihiin wadada aan xartuulka dhignay 2 kiiloomitir cagaftoon soo iibinay oo sidii gudoomiyadu sheegay aan ka soo iibinay kabkayagii oo 3 biloodkiina laga jaro $2,200 oo kale imka naga sii dhadow waxyaabo badan oo noo qabsoomay baa jira oo wax qabad badan horena wiiga horeeyay gudoomiyuna markii hore isaga joogay oo 2 sano hore iga sii horeeyay waxyaabaha markii hore qabsoomay waxa kamid ah wadada Boodley 40 kiiloomitir aniguna wuxuu baa la joogay inta dambe ee xartuulka inta la dhigay wax yar baa hadhay oo 1 kiiloomitir beerahaas ah waxyaabo badan baa degmada ka qabanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad u mahadsan yahay waxyaabo badan buu noo qabtay wasiirka biyuhuba oo dhaamka weyn degmada uu kamid yahay population meesha ku nool wadada aad badan ilaa 4,500 oo degmada ku nool 4,500 wuxuu ka cabi jiray barkadu imika laakiin insha Allah taala waxay ka cabi doonaan dhaamka oo dhamaaday oo imika iyo xal u hadhay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Alnafora oo dhaamka iyaduna aad iyo aad u hirgelisay oo waxba aanay ka faa'iidin waxay ku daraan mooyaane sida bacda la dhigayo kale plastic ku adkaa ay noo keeneen aad iyo aad buu mahadsan yahay Xaaji Salaaman
إن شاء الله إلهي خير السيئة سجانا نوكل بحية ودوين كأيو عرفتول كان دقي نبأ يعني أنت دمنا سجانا نوكل بلان قاضي إنه لا من نودي قدر إن شاء الله بإذن الله كريم دقمة الحياة وحقرأ إنك صوص عضات طبعا برينكي وحن ددوينها الحاج صالح كعد سنة إن لا شقيان تيم كاو سارد كي مريا هؤلاء جود نوصل من دور السرفين إن شاء الله بإذن الله كريم إن حلا هاي إسكرب تاجا مقالو السرفين مرة هدير لكن إن شاء الله دوام والله صمين تونا دقمة ويا هدفه ظهر مرقادو دلك يبو أريسا حاجي صالح وهذن الرحمن runtii magaalada xad saalax waxay ku suntantahay halgankii maxamed cali jaamac cali cilmi salawaan baylo raggii halganka ugu qaalisanaa waa meeshii ka yimaadeen waa la xasuustaa 83 bay ahayd markii la dumiyay magaalada allahumma salli ala nabi taariikh fara badan bay leedahay xad saalax runtii imikana aad dadaal weyn baa galay tacliinteeda iskuulada runtii ومقالة عادو دداشي أيان قباء للنيارة هايسانة ددالين وحنو باهن مان ترى إن التاريخ دا مقالة دا الحصوبة هايد مقالوين كيقو هوريين للدمية هايد إلا وانا مقالة دي يقو هوريسي حراو دا سدحي استيتن كي كديب مقالة دا سحور باي هايد مجاد إبراهيم دقا وينام صاحب نبا كلها وعمي دقال كيدا تاريخ دا دوان هيا إلا إيا مركا إلا يستيتن كي مركي لقحي مقالة حرا باي هايد حد صالح dib faqash uguma imanin boqolaal faqashna way ku dhinteen maanta magaalada waxa ku yaala iskuulkii sare iskuulkii dhexe kii hoose runtii waxyaabo badan baa ka socda oo dadaala waxaanu jeclayn waxa soo dadaalay dadka u dhashay magaalada xad saalax in maanta surveygiin laga saaray in la doonayo in ka soo qayb galaan in dhalinyarada haystay magaalada runtii hore u shaqeeyay ee aad u dadaalayeen la shaqeeyo حاج صالحنا ومقالة حدودك كتالة بقوليو صدرية كيلومتر بيوتشرتا مقالة برعو وحلا سمية دوري أفرتنات كي أنا قاب هاي حاج أحمد قولنبي دور وين بو كلها أنا مركز سوى إلا مركز عيال كافسح كسوى نتاقي تشري قرية عيالية بركديبا كويا الله تاريخ وين بيرونتي حقا يقا إيا حقا سومان لامبا كلها هذا هاي ومقالة دي شيء يقوه الرئيسين للدمية دي فقط الدميسو جميع الأوبيو وكانش محمد على